marka yes of course si fiican u xiriira xil walba la hadla subaxii la hadla galabtii la hadla kaamiradan la hadla hooyadiisana maasha Allah iyo anigu de waxaan ku heshiin wax walba dhacay xag in la dhigo aan ka fikirna kali maxaa u fiican anugaas maxaa u fiican هذا لو سنو بوحنا يا ما أنتوا بيشوا السلام عليكم قلب وناكسن فيد وناكسن لما أصحابت ميل والبودون كتوتين الصونا قدام بوحي سنة وولكن محمد مسكوت هلقا توصلنا قال صوتان وشانل كينا محمد مسكوت اوفيشال فضلا دان نوع صوتاي فيديو لايك صار موح في ردا كومنتيغا هذه هذا ما سنتين كنا سودو هذا شانل كينا horta xanuunkii iyo hargabkii iyo iska baxay mashquulkii kala iska batay oo ayaan taniyo si waa loo mashquulsan yahay arimo badan ajir marka ilaahay wax walba nin wal muraadku leeyahay oo macsilayn Allah si nin wal muraadkiisa oo macsilayn Allah si aad iyo aad ma santii janalka ciladeena ku jirtay waayidanba like ta kay loo bis like iska saar waxaan rabaa marka muuqaalkan ina wax yar ka dhaho muuqaalkan waxaan rabaa su'aal meel walba la iga soo weydiiyay badanaa dad badan ay soo weydiiyay marka maanta waxaan go'aansaday in hal mar intayda kaga jawaabo ilaa qof walba ma jawaabi karin ama TikTok luuqa la igu soo qoro ama dadka WhatsApp-kayga ayaa ii soo qoraan ama meel walba la igu soo qoro ama YouTube lagu soo qoro ama TikTok ba u badnaatay xataa dadka qaar oo live markaan u arko magaalada aan joogno ama iga hor imaadaan hal su'aal ay weydiiyaan su'aashaas raba marka inaan maanta waxa soo dhan inta mar dambe aan uga hadlin ay idin faahfaahiyo su'aashaas waxay tahay maadaama Maxamedow aab Soomaaliyeed tahay wiilkaagu Maahir iyo adigu ma xiriirtiin Maahir yare maadaama wadankii uu ka tagay asii hooyisay France aadeen Maahir Maxamedow mis xiriirisiin ma xiriirisaa anugaas yar aad baa u jeclayd asagana uu ku jeclaa de ma xiriirisaa taasina waxa keenaya waa dareemi kartiin qoysku markuu burburo ama lamaanaha markay kala tagaan gaar ahaan Soomaalida anigu dad kale wax naga ma gelin mugti lamaanaha markay kala tagaan ee Soomaaliyeed ama social media ku jiraan ama ku jirin caruur hadii ka dhaxayso waxaan naqaanaa anaga in colaadii labada qof u dhaxaysay caruurta loo gudbiyo caruurta loo adeegsado sida hubkii oo kale hooyooyin badan jira aad u xun oo caruurta markii aabaha oo canugii ay jecel yihiin aabi canugii uu la joogo hooyadii sidoo kale markii la wada joogo waqti la isla qaadanayo hooyooyin badan oo waxaa jir gaar ahaan qurbaha markii la kala tago isku dayay aabaha iyo caruurta inay isku diraan oo colaad ay dhex dhigaan oo caruurtii hub ahaan aabaha u adeegsado aabahay hub ahaan ugu adeegsadaan maruu tusaayo maruu ku luusiinayo maruu ay caruurta yani ciilkii caradii ay aabaha u qabtay ay kala duldhacay caruurtii iyo aabayaal ayagana waxaa jiro islaamta markay kala tagaan caruurtii dhinacooda iyo isla korsadaan iyo in ilmihii la isla yani wixii ani adina naga dhixi xagga dhigo wal anugan ama anugtan ama caruurtan waxa u danay aan ka fikirno aabiyaalan aqoonaa jiro hooyadii ku xumeynay oo marmar isku dayay inay ilmihii iyo aabiyaala jiro hooyada day furaan caruurta iyo hooyada isla furaay oo ilmihii aan raadinay marka labada dhinac way jiraan marka sidaas darteed la ii weydiinay maadaama anigii iyo asii hooyadiis waqtigii u dhamaaday maanta dad walaale oo asxaab aan nahay su'aashiina daan u soo laabto yes Maahir waa xiriirna Maahir yare mar walba xiriirna waagi oo meeshan uu ka tagay guriga laga kaxeeyay oo dib ka dhacay oo meeshan Sweden ay ku jireen guriyaha dawladda waagaas oo xataa anigaan lii ogoleen oo adiga xoogaa khilaaf dhaxdiisa oo ay haysatay xataa waa la xiriiri jiray hadda markuu Faransiiska aaday oo hooyis ay haysato oo free yahayna oo xilligaan aan la kulmi karo xilligaan la hadli karo ya si fiican oo la xiriira kamarad muuqaalka bilow waad ku aragteen hadda meeshan waa idin soo saaraya yes waa xiriirna anigu qaacido waxaan aaminsanahay haddii aad kala tagtaan hooyadan oo shalay wanaag ku wada joogtiin oo la kala tago ilaa kulay wanaag iyo sharaf laguma kala tago mugti markii la isku dhaco baa la kala tagaa anigu waxaan ku jiraa dadka aaminsan haddii la kala dhamaado wixii ani adig naga dhixiyay xagga dhig caruurtan maxaa u fiican ilaa waa la ogyahay mugta aabaha adduunka ugu xun hadduu yahay ama hooyada adduunka ugu xun hadday tahay ilmaha aabahood iyo hooyadood kama maarmaan canug aabihiis iyo hooyadiis kama maarmaan hadda waa ku sheegaa anigu marka waxaan jeclahay caruurtii haddii la kala dhamaado
in si wanaagsan oo walaalnimo ah oo qurux ah gabadhaas canugaas ilmahaasaan u dhex korsano bas wabilaahi tawfiiq dee wax kalma yar maanta dhib ani aan kuu hayay oo 4 la sacan ku dhibay qof xun ahay dee nolosha waa ka baxay alxamdulilah waa inaad dhahayd adadaa dhib igu haysin nolosheeda waa ka baxay alxamdulilah laakiin canugan dagaalka dhacay khilaafka dhacay guud ahaan markaa wado burburka qoyska dhacay kala tagga dhacay canugan wax shaqo ah ama oo sababa uu ku leeyahay ma jirto dhibkiina iyaysan gaarin caruurta hadda idin sheegaya caruurtu waxay aad ugu farxaan markay arkaan hooyadii aabihii oo kala tagay xataa horta waxay jecel yihiin inay wada joogaan qof walba anaga waaweyn xataa hooyadii aabihii inay wada joogaan oo laysu sabro oo sharaf ay bataa bani hooyadii aabihii weligood ma kala tagin in la dhaho haddii la kala tago xataa caruurtu waxay jecel yihiin aabbooda xilligay doonaan inay la hadlaan aabbooda xilligay doonaan ay wacaan aabbooda xilligay doonaan ay la kulmaan aabbooda waxay rabaan ay weydiiyaan hooyadiina sidoo kale waxay doonaan ay weydiiyaan ay la hadlaan afalaasaa ay la joogaan haddii hooyada mar walba waxaa fiican horta inay hooyada haysato caruurta sideeda mar walba waxaa ku fiican hooyada inay haysato haddii la wada haysan waayo hooyada hadday haysatana aabbii waa in canuga wuxuu awoodo ilaahay ma kalifin wuxuu awoodo tabartiisa ama dharkiisa ahaado ama biilkiisa ahaado ama noloshiisa ahaado wax uu awoodo in uu siiyo waktina uu la qaato uuna la kulmo uuna xiriiriyo marka yes of course si fiican u xiriiraa xilli walbaan la hadlaa subaxiyaan la hadlaa galabtiyaan la hadlaa kameradaan la hadlaa hooyadiisana maasha allah iyo anigu dee waxaan ku heshiin wax walboo dhacay dee xagga in la dhigo aan ka fikirna keli maxaa u fiican canugaas maxaa u fiican hadda 2 sano buuxinaya maanta waa bisha waa ya isbuucan adi bisha maanta waa gabagaba mugta latiisdeed la sagaal soddon adiga kowda bisha shanaad 2 sano buuxinaya marka maasha allah waa weynaaday kuley reer tiktokna waa og yihiin inaan la hadlo video baan ka soo duubay waa soo dhigay su-aashooda meesha ku ekaanay adinka youtube-ka intaa ku ekaanaysay marka aabihii soomaali iyo hooyadii soomaali idin sheegaan walaalow haddii aad gabadha kala tagtiin wax walbo idin dhex maro naf go'day ayaaba laga wada hadlaa wax walbo idin dhex maro oo khilaaf ah xagga dhig ka feker maxaa u fiican canuga ogow waalid walba oo isku daya canuga inuu ku diro waalidka kale beri markuu weynaado canugaaga iyo adiga waa isdayseen tusaale ka soo qabo adoo aabihii ah haddii hooyadaa kala tagtiin oo maalin walba ugu sheekeyn hooyadaa way xun tahay hooyadaa waa sidan hooyadaa waa sida maantana aad ku dirtid oo ba-aan ugu isticmaashid ama adoo hooyo ah haddaa ninka kala tagtiin ninkii adi xumaanta idin ka dhexaysay canugu u adeegsato hub ahaan oo dhahdid aabbaha uu ku necb yahay aabbaha sidan waa aabbaha qof xun waa aabbaha kan waa u caaysid u xumaysid maanta oo dhan beri markuu weynaado canuga aabihiis u raadsanaa wiil ha aad gabar ahaado beri way raadsanay u raadsanaa maalintuu soo ogaadona xaqiiqda in waalidka midka kale uu kan ku diray hooyo haddaatoo aabbihi ku dirtay beri markay weynaato ama markuu weynaado ogow qofka kow ay la dagaalaysa col la naqanayso adiga maxaa meesha keenayo in caruurta hub ahaan laisu adeegsado hala kala tago haddaan kaa fiiri iyo carabtan oo dhan markii la kala tago qurbaha naagta nin kale guursanaya ninkii naag kale guursanaya wabilahi tawfiiq ilmiyaa la wada korsanaya bas iskuula ballan ka jirto waa wada taagan yihiin ballan kalaa jirto canugu dantiisa waa taagan tahay aas waa taagan yahay marka waxaan waa wada xiriirnaa insha allah waana kulmi doonaa mar dhow sidaan rajaynayo waana soo duubi doonaa ya kulli asaga inta ma imaan karo sidaan u malaynayo laakiin waa kulmi doonaa insha allah suun markay naqataba ya marka hala wada xiriiro canugaaga mar walba koritaankiisa maskaxdiisa caafimaadkiisa waxbarashadiisa waxaa dan ugu jirtaa labada waalid markuu la heshiis yihiin asagan dee hadduu ninku guursado gabar yahay ama adiga wiiliyo gabar kala guursatid dee wixii dhubuq horta ma jirtaba keliya meesha ilmaha dantooda waa laga hadlo naag aa qabtid haddii ilmahaaga kale oo hore a u dhashay dantooda ay kaaga hor imaato geraara hirdhe noloshaada ka saar nin adiga ku qabo haddii ilmahaaga aabood la xiriiraya waxaas uu ka masayrana oo sida waalidnimo iyo caadiya dee nolosha iska buride hadda ku sheegaya wiil caruurtii hadda ma la helay mise waa la yahay والله ما مقلت عادي قبل أنا حتى كسو كتمي مسوي مقشر may caruurta la raadinaya maqla caruurta la raadinaya waxa gabar shaqaale oo lagu tagay waa lagu waayay ما أكو مقلة باي qaar duwanay ayaga dadka iswiida degan raaxay
dadka Denmark degan ya maaragtay ilmaha ayaga raashinka u sameeyo ma fahan صح subaxii markii ilmaha la diraayo naaga oo raashinka ka shakinta caaga ay raashinka ku wataan iyo caaga cabitaanka irinta u taagan حقه waa Denmark Denmark iyo Norway ba waa cuntada waa u baakeeyaan waxay u baasay u galiyaan anaga Sweden laakiin ma lihin anaga أنا قلت لك يا بسيل بعرورت اسكولada ka helayaan Hadday raaxa qabtaan maxaa waxaas baayada ah adiga subaxii habeen barkii hadii dukaan laga xiro dadkaas Daanishka jooga iyo Norway dukaan furan bay raadinayaan la subaxii waxay aadayaan iskuul waa sax waa arkay marka dhibaatay qabaan waxa laga yaabaa tiin lix cunug leh inay lix caag xirto shanta habeenimo kacdo caagaas maxaa ku jira afar cunto kala nooc ah waa inaad ku ritaa furugtana gooni ugu qaadaa jarmalka xataa cuntada waa la siiyaa ilmaha iskuulada laga siiyaa ma fahan xataa wadanka Canada waa sidoo kale marka dad naag oo subaxii intay cunugay kiciso u cadaydo kareen u marisa aan diri karin ma iyada wax noolba ah maba noole waxaan la yaabay wallahi umada horta walaalayaalow wadanka qurbaha waliba Sweden waa dahab wallahi billahi ilmahaaga soo cadayanba hada doonto diraysaa kaliya dharka ka saxaysa cunta hada doonto ma siinayso waxa laga yaabaa 6 7 inaa shaqo galayso quraac baa lagu siinaa qada lagu siinaa casha lagu siinaa adigoo qortay adigu 10 galabnimo 5 galabnimo ka dooranaysa laakiin Norway sida ma aha doofaar hadii ka dharjiyaan ka war ما dad waxa jira xataa ilmaha iyagoo cadaygii gabar waxay isla qaad jirtay cadaygii iyo dawadiisii wixii dhan waa ciyaan cunug sanad jira waa xagee geynaysaa waa loo cadeeyaa ka war galabtii shanta u imaanaysaa wiilkaas wuxuu yidhi haddii doofaar la siiyo ka war may doofaarka marka hore doofaar lama siinayo waa u qoranaysaa cuntada digtoor siiba geynaysaa waxa dhaysaa ilmahayga xasaasiyo ku qabaa doofaarka waxyaabo maya waaba noo ogolya anaga xasaasiyo ma dhahno waxaana cuntada xalaal waxa dhaysaa maba cuno ilmahayga waa laga reebiyaa kalluunka bas ay siin kartaa inta kale waxa leedahay xalaal baa waa qoraysaa marka meesha geynaysid baad qoraysaa marka iyagu dad xasaasiyad ku qabay moodayaan nimaba moodayaan diin iyo waxa ma fikirayaan ما يدي حساسية لا تنقف وماشي قلت لما ديه كرو كان أباي عنتظر إسلامك المها إسلامك الدوني بسيان ما فهم ويسيان ها سكول حتى وصو قرنا مركب مسينا يعني مكاسينا دكتور وحا هيغا سينينا ما لغا سينا وحي لو waxa laga siinaya wixii aad ku qortay baa dhakhtarka waxa loo dirayaa qaybta cuntada loo dirayaa intaas oo qof oo cuntada cunin baa ku jira cuntada u soo sameeya saasa ku cunaan ما شاء الله ها مركب إلهنا ناقص هذا يديه لا ينكور عنت أما قرقة وسوق عتا أما عنت كلام يشرت هذا يديه لا ينكور هذا ما يعود هو قبلها الدير ما دقن waxa arkaysaa shanta habeenimo afarta habeenimo barka bay ka caysay cunto sameeyay rooti dubay ka waran صح wallahi ma arkayso qof dhif ma ahan naag deer ma degan ilmo laga qaatay ma arkaysi waxa ayaga siistaha maanta dhan way taagantaa meel kasta way taagantaa ma faantay gabadhaan iska shaqayso miya istiri caruurta shaqaalaha ku hayo marka caruurta laga qaatay ama shaqaysata iyada caruurteeda haysatay shaqaysan kartaa diiniyo soo dhawow imise ciyaalku ahaayeen wahay ilmaha yar hadda imaaday ilmaha yar xagee lagu qaatay ilmaha yar Yurub laga wada Soomaaliya lagu qaatay hadda ama habartii odayga ama isdagaalsanaayeen ilmihii kala xadeen waa laga yaabaa وأنا كيف فكري أنا قبل المهم يلا إرمتشرين هاي أبو هبرتي أضو هذا استقال سرايان ويسفهم الهاي ضدك ويسفهم هاي المفتاح إن شكلان لما ضبط خلاص هبرتي أضي بوليس كانوا مجيين اللي اسمه قبل ما يسأل شرمل كواحد قبل ما ولا يسوي الشدادي لا اسمه قبل واحد شيء هبرتي أضي المها تلات ولا يسوي الشدادي بس علي ما يسوي الشدان سواء كلا دومين ما كلا دومين مش يسوي الشدان وايه ما أقل وهذا شرملك نينكم مركو ناقة أو إيمان هيو أو إمام هيو إنه قبو ناقة لنينكم مركو سو حريصة وما سو حريصة إنه نين نقدر أتوجو أسوأ دولة دواي لكن ما يسحل على سنة ما هالدولة دواي سنة صح لها اللي جيسو مركو أني ما هذا طبعا كوه همين بقول جوجا أما الله بضاب براد
uuray qaadee marka uurka isku aragto waxay leedahay abow iima imaan kartid albaabkay ka xirane Aye. abaay adna baay mar dambe taleefonka iga soo wici kartid Muu kala wad. waa lagu kala tegaa hadhowna lambarkaaga markay cunuga dhalaysa magaceeda lagu qoraa yaa kaa dhal ma ogyahay leedahay ayada lagu qoraa dowladda biilas bismillaahi raxmaan Hadda intaasay raadinaysa inay dowladda biisho ilma. cid isku imaanaysa Ilma been lagu dhalay. dee hadda asba intaasu raadinaya asba wuxuu rabaa 4 bari inuu meesha seexdo ma uusan ilma been lagu dhalay. Maxaa la dhahaa lagu koriyay xoolo islaameed lagu koriyay. Hooyadood iyo aabood aan u soo rafaadin khayr ma laga sugaa markaas wadanka geynayaan diin bay barayaan ilmahaas qayrkooda ha la gaaree qayrkiiba yaa ilmahoodii gaaray ilmaha yaaba qayrkiisa gaar hadduuba dhashay qayr iyo khasaare midna loobama haya ilmahaane maya hadda ayaga ilmaha qalad ma lahan qaladka waxaa waaye waalidiinta waaye ilmihii markuu dhashay waxba ma haysto aabba ma haysto hooyo ma haysto waa la dayacay hooyada maxay samaynaysaa mid kale ay cunug kale ka dhashay raadinaya dacweynaha xirana guriga ku xireen meeshay aadta mid ka soo wadaysa uur kale qaade tan kale oo ayadu waxay magaalooyin bay diyaarinaysaa waa garoomo qaadaha jarmalku mid reer hoo la qabo adig marwe gooniyo la qabo waa jirtaa waxaa su-aal ka qabaa ani ilmahan oo maxaa la dhahaa maalintii haafkeedoo dhan ama 4 ama 12 saac ku dhawaad macnaha iskuulka intaa la geeyo iskuulkaas dadka jooga ee ku dhaqan dhaqanayaan ma fahamtay diin iyo dhaqan iyo wax walba xaggay kala qabsanayaan 8 saac bay la joogayaan maalintii oo dhan xaggay jiraan habartii odayga waa kala danaysteen xataa hadday isla joogaan iyo haddii isla joogin xataa maya diin iyo dhaqanka ilmahaas waa gooni ayagu waxay samaynayaan ilmuhu waa gooni laakiin labadan waalid oo ciyaar suuqeynta ah ee ilmihii dayacahaya markay 3 xabba gaaraan ma hay karto mid kale rabtay inay raadiso ilmihii marka maxay samaynaysaa dowladda la wareegaysa hadda markay dowladda qabsatana waa la carare waxaan wax khaldan bay samaynayaan waa khalad wallaahi horta markii laga tago maaragtay diintii iyo dhaqankii iyo maaragtay wixii toosnaayo markii laga tago in bohol lagu dhacayo way iska caddaha ma fahamtay marka dib la isugu laabto rag iyo dumar عليكم فلسان قولك هذا ما هميها الله يهديك أنا السلام شركتي نسوتنا والله كاغانا maray raadinaysa qolka filsan miyaa ku tahay maray raadinaysa